dalka isu tag Imaaraadka Carabta ayaa la kulmaya weeraradii ugu badnaa gaar ahaan magaalada Dubai iyo magaalooyin kale. hadda waxaad muddaa xitaa magaalada Sharjah iyo magaalooyin kale in gantaalo lagu garaacay. muuqaaladii ugu dambeeyay ee lasoo bandhigay ayaa muujinaya nidaam difaaceedka Imaaraadka Carabta iyo kan Mareykanka halkaasi yaallo inay ka hortagayaan diyaarado badan iyo gantaalo dhanka Iiraan ka imaanaya. Imaaraadka saacad ka hor waxa ay sheegeen in ka badan 500 oo diyaarado drones in lagu soo weeraray iyo gantaaladii ugu badnaa. sidoo kale waxaa la soo duubay muuqaalo muujinaya dhismayaal ku yaala magaalada Sharjah oo dalka isu tag Imaaraadka Carabta oo uurada cirka isku shareertay sida wakaaladaha wararka ee dalka Ruushka ay baahiyeen. sidoo kale waxaa la sheegay in gantaale ay ku dhaceen dekada Zayed la yiraahdo ama Zayed Port oo ku taala magaalada Abu Dhabi oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ganacsiga ee dalka isu tag Imaaraadka Carabta. garoonkii diyaaradaha Imaaraadka Carabta waa la xiray, kii Dooxa waa u xiraya, midka Kuwait, kan Bahrain, garoon diyaaradeedka Ben Gurion oo Israa'iil, garoomadii Sacuudiga. arrintan saameyn weyn ayay ku yeelatay qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka oo dhaqaalahoodii hoos u dhac weyn ayaa ku imaanaya. markaad eegto wararkii ugu dambeeyay sidoo kale oo dalka isu tag Imaaraadka Carabta ah waxaa la baahiyay in gantaalo lagu garaacay saldhig Faransiiska uu leeyahay oo ku yaala gudaha isu tag Imaaraadka Carabta. sida wararku ay sheegayaan saldhigan oo xerada nabadda lagu magacaabo waxa ku yaala magaalada Abu Dhabi oo caasimadda Imaaraadka ah. waxaa la furay sanadkii 2009. saldhigan haddii aan macluumaadkaasi wuxuu ka kooban yahay 3 qayb: qaybta badda, qaybta cirka iyo qaybta dhulka. qaybta badda oo kale waxa uu ku yaala agagaarka dekada Port Zayed la yiraahdo. waxa qaybtan ay martigelisaa maraakiibta dagaalka ee Faransiiska, waxaana la sheegay in laga ilaaliyo maranbadeedka Khaliijka iyo sidoo kale gacanka Hormuz. qaybta cirka oo kale waxay ku taalaa saldhigga Al Dhafra lagu magacaabo. waxaa halkaasi inta badan yaala diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ee Rafale la yiraahdo. waxaa sidoo kale la geeyaa qaar ka mid ah diyaaradaha dowladaha reer galbeedka inkastoo Faransiiska u badan yahay. kan dhulkana waa midka tababarka ciidan iyo dowlatusyada wadajirka Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska ay qabtaan halka lagu qabto. sababta Faransiiska halkaas ugu leeyahayna waa ilaalinta marinka Hormuz, joogitaanka gaashaanbuurta NATO iyo reer galbeedka ee dowladaha Khaliijka, la shaqaynta dhanka militariga ee Imaaraadka Carabta, iyo in haddii xaaladdu ay bariga dhexe ay gaarto ama jawaab degdeg loo baahdo in Faransiiska uu halkaasi tallaabo uu ka qaado. qiyaastii 600 ilaa 700 oo askar oo Faransiis ayaa la sheegaa inay si joogto ah halkaan ay u isticmaalaan. marka la eego dhanka geopolitics saldhigan wuxuu Faransiisku kaga dhigan yahay dalka kaliya ee reer Yurub ee saldhig ku leh Khaliijka, awoodiisana si toos uga howlgali karto badda cas, bariga Afrika iyo sidoo kale qaybo ka mid ah goobaha ay Iiraaniyiinta gacanta ay ku hayaan. weerarkan wuxuu ku soo beegmayaa markaa iyadoo Faransiiska uu saacada ka hor sheegay in xitaa aan lagu wargelin weerarka Iiraan lagu qaaday, laakiin Ingiriiska si cad ayuu u sheegay inuu weerarka qayb ka yahay. dhanka Qubrus ayayna u badan tahay ama Greega aan iraada ayayna u badan tahay inuu Ingiriiska weeraradiisa ka soo qaaday. saacada ka hor xitaa waxaa la baahinayay xogo ku saabsan in Iiraan ay dhanka iyo Qubrus ay gantaale ku weerartay inkastoo aan xogo rasmi ah laga haynin. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. wargelin muhiim ah: ma doonaysaa inaad ka cumrayso waalidka oo geeriyooday ama xanuunsanaya ama aanan awoodin inuu soo cumraysto? shirkadda Al Huda ayaa ku qabanaysa dhammaan adeegyadaasi iyadoo cadeymo lagula wadaagayo. sidoo kale shirkaddu waxay qabataa cumraysiinta qofka doonaya in la cumraysiiyo. haddaba haddii aadan awoodin oo aad ka fogtahay Sacuudiga ama aadan gaari karin, la xiriir shirkadda Al Huda si ay adeegaasi ay kugu qabato adigoo wacaya telefoonada shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. marka dowladaha Khaliijka aad eegto Imaaraadka Carabta ayaad muddaa marka khasaaraha ugu badan in uu la kulmayo marka la eego duqeymaha oo dhismayaasha ku yaala magaalada Dubai iyo magaalada Abu Dhabi ayay inta ugu badan gantaalada ay ku dhacayaan iyo xarumaha muhiimka ah. tusaale ahaan hadda waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in Iiraan ay bartilmaameysatay mid ka mid ah ilihii shidaal ay ugu muhiimsanaa Imaaraadka Carabta. diyaarad ayaa la sheegay in lagu weeraray oo gacanka Khaliijka ah, mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee shidaalka. sidoo kale dekadihi ayaa la bartilmaameysanaya dhismayaashii ganacsiga dhaqaalaha badan ay ka sameyn jireen. sababta marka waxaa la isweydiinayaa Imaaraadka Carabta weerarka intaan la eg oo ula kulmayo in ka badan kan Israa'iil, inkastoo Israa'iilba in ka badan 1500 oo gantaal la sheegay in lagu weeraray saacadii la soo dhaafay. Cumaan oo kale maanta waxaa la weeraray mid ka mid ah dekadihii ganacsiga ugu muhiimsanaa
dekada duqmi lagu magacaabo oo cumaan ku taala. dekadan waxaa la sheegay inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan ee dhowaan maraykanka iyo dowladda cumaan ba heshiis ay ku gaareen inuu agabka logisticada iyo waxyaabaha la midka uu kasoo degsado. waana mid ka mid a goobaha ugu muhiimsan sidoo kalena cusub oo uu doonayo gobolka inuu ku yeesho dalkaasi cumaan. haddii aan eegno hay-adda badaha ee dowladda ingiriiska waxay shaacisay in laba maraakiib ah ay gantaallo la kulmeen ama gantaallo ay ku dhaceen xili ay marayeen gacanka hormuus. magaalada teheraan oo caasimada dalka iiraanna duqeyntii ugu badneyd ayaa galabta lagu garaacay, taasoo ka dhigan in khasaaruhu uu aada u kordhayo dadka rayidka soo gaarayo. ilaa iminkana maraykanka waxa uu shaaciyey in 3 ka mid a askartiisa ay geeriyoodeen, 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen, weliba qaarkood dhaawacyadooda aad ay halisa u yihiin inta howlgalkan lagu guda jiray. waana qirashadii ugu horreysay oo maraykanka uu samaynayo tan iyo dagaalka markii uu bilowday. haddii aan soo laabto, xogaga iska cabinta ee xamaas war-saxaafadeed ayay soo saareen. waxay marka hore ay cambaareeyeen duqeymaha iyo weerarka israa'iil iyo maraykanka ay ka geysanayaan gudaha iiraan. waxay sidoo kale sheegeen in lagu xadgudbay madax banaanidii ee dalkaasi iiraan, waxaana ay yidhaahdeen israa'iil iyo maraykanka ayaa ka dambeeya cawaaqib kasta oo ka dhasha dilka ayatullahi khomeni iyo weerarka. war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi sida tan: waxaan u tacsiyadeynaynaa oo aan ka tacsiyadeynaynaa kana xunnahay dilka ayatullaahi sayid cali khamenei, hogaamiyihii kacaanka islaamiga ee dalka iiraan. waxaan xasuusanaynaa noloshiisa iyo safarkii dheeraa oo usoo galay taageerada shacabka falastiin, taas oo sababtay in xogaga iska cabinta ee xamaas ay muddo 40 sano ah ay ku jiraan halgankooda siyaasadeed iyo midka ay doonayaan inay xorriyadooda ay ku helaan. dhaqdhaqaaqu waxay sheegeen marka in taageero dhanka siyaasadda, diblomaasiyadda iyo taageero militari oo falastiiniyiinta sii jiray ayatullaahi cali khamenei. waxaa sidoo kale ay sheegeen inay garab taagan yihiin dadka shacabka ah ee reer iiraan. qoraalka waxaa lagu yidhi: waxaan ugu baaqaynaa ummadda carabta iyo guud ahaan dadka islaamka iyo bulshada caalamka, labada dowladood iyo hay-adaha caalamigaba inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo go-aano halis ah inta aysan imaanin ka hor laga hortagaa dembiyada iyo xadgudubyada sii kordhaya, sidoo kalena la joojiyaa sii socoshada dagaalka guud ahaan dhanka gobolka. xogaga iska cabinta waxay cambaareeyeen marka duqeyntaas. waxaa kaloo ay sheegeen inay garab istaag u muujinayaan shacabka dowladda iiraan, aadna ay uga tacsiideynayaan geerida ku timid ayatullaahi cali khamenei. haddii aan dhinaca kale eegno imaaraadka carabta, shirkadda lagu magacaabo DP World oo dhanka dekadaha qaabilsan waxaa lagu warramayaa inay ku dhawaaqday joojinta shaqadii ay ka qabanayeen dekada lagu magacaabo jabal cali oo ka mid a dekadaha ugu muhiimsan ee dalka isu taga imaaraadka carabta. dhanka markaan eegno israel waxaa aada loo hadalhayaa xaafadan oo iiraaniyiinta ee gantaale ay ku burburiyeen. xaafadan oo beit shamis lagu magacaabo, dhismayaal halkaasi ku yaala ayaa gebi ahaan la burburiyey. waxaa dhismayaasha hoostooda laga soo saarayaa ee dadka la sheegay inay ku hoos jiraan dhismayaasha qaarkood. waxaa la sheegay inay mar horeba halkaas ay ka baxeen iyagoo qaatay fariintii digniinta ahayd ee mar horeba ay soo gaarsiiyeen israa'iiliyiinta. aqalka cad ee dalka maraykankana waxa uu shaaciyey inuu madaxweyne trump si dhow ula socdo howlgallada iyo dagaalka iiraan lagula jiro ilaa iminka. warbaahinta carabta haddii aan usoo laabanana waxay baahinayaan in la bartilmaameysaday dhismo ay ku sugnaayeen israa'iiliyiin, dhismahaas oo ku yaala magaalada abudabi oo dalka isutaga imaaraadka carabta, inkastoo faahfaahin dheeraada aanan la helin. sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa sheegay inay 4 gantaal ay ku weerareen markabka dagaal ee lagu magacaabo abraham lincoln. markabkan oo ah mid aada u muhiimsan marka la eego dhanka maraykanka. 4 gantaalna waxay sheegeen kuwo balastiga inay ahaayeen. macluumaad lagama hayo ilaa iminka, sawiro iyo muuqaalana lama hayo. laakiin iiraaniyiinta waxay dhinac kale ay soo bandhigeen iyagoo bartilmaameysaday diyaarad daroonis ah oo MQ-9 la yiraahdo oo ka mid ah diyaaradaha drone ee maraykanka uu isticmaalo dhanka sahanka iyo howlgalladaba. marka la eego qiimeynta ilaa iminka la sameeyey toddobaadyo ayaa la sheegay inay qaadan karto dagaalka hadda u dhexeeya iiraan iyo maraykanka. sidoo kale mas-uuliyiinta maraykanka ayaa laga soo xigtay inay yidhaahdeen ma filayno dilka ayatullaahi khamenei kadib inay awood kale iiraaniyiinta ay la soo bixi doonaan. dhinaca kalena markii ugu horreysay sida qodobka 110aad uu dhigayo, mas-uuliyiinta iiraan ayaa shaaca ka qaaday in golaha kumeel gaarka ee dowladda iiraan ay bilaabeen durbaba shaqadaas oo wahaya ayatullaahi khamenei, taas oo aan qaybtii hore ee barnaamijyadeena aan ku sharaxnay ninka bedela ayatullaahi khamenei iyo awoodda uu leeyahay. cabaas araaqjina waxa uu u sheegay telefishinka aljaziira in bartilmaameysiga hogaamiyahooda uusan ka dhignayn in iiraan gebi ahaanba ay daaqada ka bixi doonto, laakiin ay sii dagaalami doonaan. khaliijka iyo dagaalka ay ku qaadeen ayuu soo hadal qaaday.
ma filayna buu yidhi wanaag inuu qof kale inooga imaanayo laakiin xaq baan u leenahay inaan nafsadeenna difaacno ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan. madaxweynaha dowladda iiraanna warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka cadowgooda iyo bartilmaameysiga saldhigyada maraykanka ee dhanka gobolka. aan kula wadaago marka iiraan markii ugu horreysay gantaalka ay adeegsatay. wakaaladda wararka ee faris la yidhahda dalka iiraan ayaa axadda maanta ka soo xigatay saraakiisha dhanka militariga ee ciidamada dowladda iiraan in markii ugu horreysay ay adeegsadeen gantaalka faatix labo. gantaalkaas oo hybersoniga xawaarihiisana uu aad u sarreeyo, waxaana ay sheegeen in lagu bartilmaameysaday saldhigyada maraykanka inkastoo saldhig gaar ahaaneed aanan la cayimin. gantaalkan wuxuu leeyahay masaafo aad u sarreyso 1400 oo kilomitir ayuu gaari karayaa. xawaarihiisa wuxuu u dhexeeyaa ama uu ka sarreeyaaba codka 5 ilaa iyo 13 jeer, taasoo u dhigan in ku dhowaad 18,000 oo kilomitir uu saacaddii si toosa u jari karayo. waxayna taasi suuragelinaysaa masaafo u dhexayso galbeedka dalka iiraan iyo israa'il inuu ku gaaro waqti kooban oo ah 5 daqiiqo oo keliya. gantaalkan waxa uu sidaa madax gantaal oo burburintiisa aad ay u sarreyso, miisaankiisana uu gaaraya 450 kilogram. waxa uu leeyahay awood uu ku jebin karayo nidaamyada casriga ee difaaca hawada, waa uu ka gudbi karayaa. weliba gantaalkan waxaa la sheegay mid cajiiba inuu yahay markii ugu horreysay ayayna iiraan adeegsanaysaa tan iyo dagaaladii ugu dambeeyey. marka laga hadlayo warbixinta wakaaladda wararka ee faris ee daabacday, qabiirka dhanka militariga ee nidaal abu zayd ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in gantaalkan uu ku dhacay badda meel u dhow jasiiradda qubrus, islamarkaana micnuhu uusan ahayn in jasiiradda la beegsada, laakiin waxaa la sheegay inay u badan tahay in bartilmaameedka uu ahaa mid ka mid a saldhigyada maraykanka ee bariga dalka suuriya, halkaasina uu u gudbay. abu zayd wuxuu intaas ku daray in ku dhawaaqidda iiraan ee adeegsiga gantaalka faatix laba ay ka dhigayso beegsiga qubrus in macquul uusan ahayn, maadaama masaafada gantaalkan ku dhowaad 1400 oo kilomitir inuu gaari karayo. laakiin waxaa la tilmaamay in jihada iyo wadada gantaalka ay si badan uga ekaan karto goobaha ay ku yaalaan saldhigyada maraykanka ee bariga dalka suuriya, sida saldhigga lagu magacaabo al-shadaadi iyo saldhigyo kale. dhanka kale weeraradii ugu dambeeyey ee israa'iil lagu qaaday ayaa khubaradu waxa ay ku tilmaameen marxaladan inay tahay marka mid iiraan ay tayadeeda kusoo bandhigtay, israa'iilna ay la kulmayso weeraro aysan hore u arkin. qaar ka mid a xaafadaha ayaa la burburiyey. khaliijka si gaar ahaaneed baxrayn iyo dowlado kalena waxaa lagu waramayaa inay la kulmayaan koronto la-aan. si gaar ahaaneed dalka kuwait waxaa la sheegay in qeybtii korontada waxyeelle ay soo gaartay. mas-uuliyiinta dowladda ayaana mar kale arrintaasi xaqiijinaya. muuqaalada waa kuwo iska soo dabadhacayo markaad eegto dagaalka iyo goobaha la bartilmaameysanayo. aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay intaan tabinta ku guda jirno. mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ayaa waxaa laga soo xigtay kadib markii telefishinka aljaziira ay la hadleen ilaa iminka inaysan caddayn saameynta iiraan ay ku yeelatay dilka ayatullaahi khamenei, taasoo ka dhigan in yacni mar walba iiraaniyiinta dadkii bedeli lahaa hoggaanka ugu sarreeya usii diyaarsan yihiin. wararka soo baxay waxay sheegayaan in diyaaradda B2 la yidhaahdo oo ah diyaarad raadaarka ka dhuuman karto, qaadina karta gantaalada awoodooda ee aadka u sarreysa, maraykankana uu ku faano inay xalay ay ka qayb galeen duqeymo ka dhacay magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraan ah. dalka isutag imaaraadka carabta wararka soo kordhay haddii aan eegno 2 israa'iiliyiin ayaa la sheegay inay dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii magaalada abudabi la bartilmaameysaday. wararka kale haddii aan eegno waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan iiraan inay mar kale bartilmaameysatay markab la sheegay 17 nautical mile inuu u jiray xeebaha isutag imaaraadka carabta kuna wajahnaa dhanka iyo marinka hormuz. arrimahan waxyaabaha ka soo kordhay insha allahu tacaala waan kula wadaagi doonaa. wararka ugu dambeeya haddii aan eegno 57 ruux ayay israa'iil sheegtay in deegaanada daanta galbeed ee israa'iiliyiinta ay gacanta ay ku hayaan inay ku dhaawacmeen. waxaa la sheegay 9 ruux inay ku geeriyoodeen xaafadda beit shamis kadib duqeyntii dhacday 36 kalena ay dhaawacmeen. wadarta guudna taas waxay ka dhigaysaa 57 ruux in ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen tani markii iiraan ay duqeysay xaafadan gantaalada ugu badan ayaa ku dhacay. arrimahan waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.